السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa in aan update yar idinka siiyo bal halka ay marayaan howlaha shirkadan loo yaqaano MyForex Funds. Shirkadan MyForex Funds waxa inoogu dambeysay 2023 bishii August. Intaas oo dhan update-keeda waan la soconay sababtoo ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay lacag ka xiriirnaayeen. Xalay waxaan soo dhignay qoraalkan Telegram-keena Somifest Telegram channel-keena Somifest kaasoo aan kaga waranay update-ka ugu dambeeyay. Marka ilaa maanta waa la isoo weydiinayay marka waxay ka maarmi weyday in aan soo dhigo muuqaal aan kasoo sameeyo. Marka haddii aad ka daba geeyo shirkadani kolley qofkii akoon ku lahaa ama lacag ka xiriirnayd baan rabaa in aan update ka siiyo sababtoo dad kale iyaga waxba kama gelin. Shirkadan waxaa la xiray 2023 bishii August iyada oo lagu soo eedeeyay in ay magaraysa lacag lunsi iyo waxyaabo noocaas ay sameysay. Marka laba meelood laga soo dacweeyay Mareykanka iyo Canada. Mareykanka dacwadeedu waxay ahayd maxkamad bay ahayd soo kale gobolka Ontario ee Canadana waxaa lagu xayiray lacagihii shirkadu ay lahayd. Marka shirkadan dacwadda markii koobaad waxaa lagu waayay dacwaddii ahayd been abuurka ahayd in ay lacag xayireen lacag inay lunsadeen oo traders ay ka lunsadeen waa lagu waayay. Marka taasi waxay ahayd Mareykanka ahayd marka waa la sii daayay dacwaddan inaan dib loo furi karin ayaa lagu wargeliyay qoladii dacwadda soo ogtay. kale qoraalkan update badan aan ku siiyay Telegram-keena yaala. sidoo kale bishii ugu dambeysay sanadkan soo dhaafay 2025 iyadana waxaa la sii daayay lacagihii kaga xiriirnaa Canada. Marka maxkamadda gobolka Ontario ayaa amartay in la sii daayo lacagahaasi marka shirkadu way la soo wareegtay. Marka shirkadu iminka waxay wadaa un update bay wadaa in ay si u soo laaban lahayd. Markaas waxay filaynaa in ay dadka la xiriiri doonto bishan ay ku jirno ilaa iyo February in ay dadka la xiriiri doonto. iminka waad aragtaan website-keeda way soo celisay waxyaabo badan oo dheetooyin badan bay leedahay waan soo gelinaynaa waxyaabo badan marka roadmap bay leedahay ay ku socoto. Laakiin intaa waxa dheer anagu Soomaali ahaan dadka baasaboorka Soomaaliga ka diiwaan gashanaa iyo dad kale ee Soomaaliyeedba waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ka howlgalay lacagaha ku xiriiran saan uga sii deyn lahayn. Marka markii hore waxaan ku talagalsanayn in aan soo deyno aanu qabsano looyaro. Marka maxkamaddu waxay leedahay qayb lagu xereeyo oo lacagii dadka ka xiriirnaa case gaar ay u furtay. Marka waanu ka baaqanay laakiin weli kiisku wuu furan yahay. waad nagu soo biiri kartaa groupkeena muddo sanad ahba waan soo wadnay hawshooda waan soo wadnay intiina cusubna insha Allah Telegram-keena ku soo biira WhatsApp-kana waa naga soo qaban doontaan insha Allah. qof wal oo cadayn u haya lacagii ka xiriirnaa iyo waxyaabahaas oo dhan waa la baadi doonaa. marka update-kana halkan baa kala socon doontaan WhatsApp-ka waa naga soo qaban doontaan insha Allah. guul baan idin rajeynayaa. kole anagu kamaana nasano intaas sano ay xirnayd waxa laga yaabaa dadka qaarna iska ilaawenba dad lacag ka xiriirnaa iska ilaawen baa laga yaabaa. marka anagu waan la soconay intaas oo dhan. ka soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan inoo share gareeya asxaabay ka xiran yihiin hadda ogtahayna insha Allah u share gareey muuqaalkan Telegram-keena ku soo biiro WhatsApp-kana ha iga soo qabto insha Allah. Wassalaamu calaykum.